Soo dhawaad saaxiibayaal, muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay TikTok Shop. Waxaan ka hadli doonaa ama aan idinla wadaagayaa dhowr qodob oo TikTok Shop ku saabsan. Haddaba intaan qodobada u guda gelin, haddaan fahan yar hordhac idinka siiyo. TikTok Shop waa barnaamij affiliate, waa product TikTok lagu dhex gadayo kaas oo dul saaran yahay commission. Marka linkiga product-gaasa qaadanaysaa, kadibna waad xayeysiinaysaa ama post baa ka samaynaysaa oo video ah. kadibna linkiga waa postiga raacinaysaa. Marka linkigaas qof kasta oo ka gata waxaa kuu saaran faa'iido commission. Marka muuqaalkeena haddaan kusoo laabano, waxaan kaga hadlaynaa 3 qodob oo ku saabsan TikTok Shop ayna muhiim tahay inaad wax ka ogaatid. Kuwaasoo kala ah TikTok Shop wadamada uu ka shaqeeyo ilaa hadda, dadka ka shaqeysta TikTok Shop lacag ahaan intay samayn karaan, iyo TikTok Shop marka afuratid product-yada say kugu soo muuqanayaan gudihiisa sida uu yahay, iyo commissionada lacagaha dul saaran sida loo arki karo. Midda koowaad haddaan ku bilowno wadamada TikTok Shop ilaa hadda ay ka shaqeynayaan waa Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, United Kingdom, UK, United States America, yani USA Mareykan bes, iyo Vietnam. Qodobkan labaad wuxuu noqonayaa soo u ekaanayo featureska TikTok Shop markuu qofka u furto ama gudihiisa u soo galo kale qofka u furan yahay. Marka product-yada saas kale kugu soo muuqanayaan, kuwii dhamaado oo kale oo markaas aan olina sold out kaasa lagu soo qorayaa. Sidoo kale lacagaha commissionka aad ka sameynaysid oo affiliate-ka marka aad sameysid waa lacagta in ay ku taalo kale, lacagaha la wada socdo kale. Marka celcelisan haddaan ka soo qabto kale, shaygii ama product-gii 10 la gadayo waxaa kuu saaran 2 baa kuu saaran faa'iido ah. Marka taasoo ka dhigan 20% baa leedahay. waa celcelisaan ama average-ka saxda marka wax ku qiyaasno. Marar qaarkood waana ka badan kartaa waana ka yaraan kartaa. Qodobkeena saddexaad ugu dambeeya wuxuu ku saabsan yahay dadka waxaan ka shaqeysto kale ama affiliate-kan TikTok Shop sameeyo kale lacag ahaan inay ka samayn karaan ama qiyaas ahaan qaarkood inay ka sameeyaan. Currently made $20,000. Let's see, there's it right there, 20.5 thousand. There you go. That's what I've made. Gabadha hadda aad daawateen waxay leedahay waxaan ka sameeyay $20,000 waa affiliate kaliya. iyadoo waa content creation marka wax laga yaabaa product-yada soo gato kaliya inta muuqaal ka sameeyso inay publish gareyso kadibna dad badan halkaas ka sii iibsadaan. Hey, that's up until January 29, since it's always a day behind. You guys can see that. Sidaad arki kartaanba waa January kaliya oo sanadkan 2024 ah waxay ka sameysay waa 1 January ilaa 29 January waxay ka sameysay lacagtaas oo ujeedaan oo $20,000. dadka qaarkood inay aamin waayeen baa suurtagal laakiin se maanta oo la joogo waxaa wax walba bedelay teknoolajiyada ayadoo sameynaysa fursado waaweyn oo inaba aan caadi ahayn.